Kooxda kubadda cagta naadiga Hagen ayaa markaasi heshiis ay la gashay ciyaaryahanka lagu magacaabo Faisal Aadan Cabdiraxmaan Faisal Sabuni oo dhowaan iskaga soo tagay kooxda kubadda cagta ee gaadiidka. Naadiga ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Hagen ayaa soo bandhigtay galabta ciyaaryahanka lagu magacaabo Faisal Aadan Cabdiraxmaan Faisal Sabuni oo waqti badan kusoo qaatay naadiga gaadiidka oo kula soo guuleystay horyaalka kubadda cagta ee markaasi sanad ciyaareedkii dhammaaday ee Somali Premier League, sidoo kalena finaalka gaarsiiyay tartanka koobka Jane Daawud oo laga qaaday xilli ciyaareedka. Laacibkan ayaa ka ciyaara khadka dhexe wuxuuna qayb ka ahaa xidigihii waaweynaa ee naadiga gaadiidka. Waxa uu hadda kusoo biiray naadiga Hagen kaasoo u saxiixay heshiis 2 sano ah. Faisal ayaa markaasi hadda ku biiray isla naadigan, waxaana galabta lagu soo bandhigay garoonka weyn ee Stadium Muqdisho, halkaasoo ay markaa kooxda tababar ay ku qaadanaysay. Sidoo kale galabta ayaa lagu dhawaaqay heshiiskiisa, waxaana lagu soo bandhigay laacibkan heshiiska marka uu duugayay naadiga Hagen xarunteeda weyn oo markaa lagu soo dhaweeyay. Sidoo kale laacibkan ayaa soo dhaweeyay dhammaan ciyaartoyda, maamulka, macallimiinta ee naadiga Hagen, waxayna u rajeynayaan in mustaqbal wanaagsan iyo guulo wax ku ool ah uu gaarsiiyo kooxda Hagen. Kooxda Hagen ee kubadda cagta ayaa horyaal ugu dambeysay inay ku guuleystaan sanada 2014-2015 xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyay ee ciyaartay naadiga wax guulo ah iyo sidoo kale tartamo ay ku guuleysteen ma jiraan. Sanadkan ayay doonayaan in ay kasoo muuqdaan horyaalka Somali Premier League si ay guulo waaweyn ugu soo gaaraan. Xilli ciyaareedkan ay doonayaan in ay ku guuleystaan horyaalka Somali Premier League oo ka mid ah horyaalada ugu xamaasadda badan ee laga ciyaaro dalkeena Soomaaliya, oo ay markaasi ka hortagi doonaan naadiyada kale ee xiisaha u leh horyaalka kubadda cagta Soomaaliya oo dhowaan bilaaban doona. Dhanka kale, naadiga Hagen ee kubadda kolayga ayaa xilli ciyaareedkan waxa ay la ciyaartay kulankooda koowaad ee furitaanka horyaalka Somali Premier League. Naadiga Somali Fruit ee tartankan ay kula loolamayaan horyaalka kubadda kolayga dalkeena Soomaaliya. Naadiga Hagen ayaa soo bandhigtay ciyaar cajiib ah, kooxda ayaana ugu adkaatay 114 oo ay keensadeen wiilasha Hagen, halka kooxda Somali Fruit ee kubadda kolayga ay la yimaadeen 54 iskoor, sidaasina hoggaanka looga qabtay ciyaarta. Wiilasha naadiga Hagen ayaa ciyaar aad loo jecleysto ay markaa kusoo bandhigeen, walow kooxda Somali Fruit ayna ahayd koox kale oo ka xamaasad badan marka laga eego xilli ciyaareedkan oo ay markaa soo bandhigeen oo qayb weyn ka ahayd kooxda kubadda kolayga Hagen iyo Gifty, waxayna horey u soo bandhigeen ciyaaro aad u xiiso badan. Dhanka kale, tababarayaal iyo sidoo kale ciyaartoy ayaa maanta waxay soo dhaweyn weyn u sameeyeen macallinkii hore iyo ciyaaryahankii hore ee kooxda Kaysaney Faynuus iyo sidoo kale kooxaha kale ee dalka soo maray Cumar Maxamed Jabshi oo ka mid ahaa macallimiinta laf-dhabartu ahaa, waxaana uu soo bandhigay ciyaaro kala duwan oo ciyaaray. Sidoo kale xulka qaranka Soomaaliya ayuu soo matalay, waxaana soo dhaweeyay macallimiinta naadiyada ee dalka. Sidoo kale macallin Cumar Jabshi ayaa waxa uu soo saaray xidigo waaweyn oo wax ku ool u ah kooxaha dalkeena Soomaaliya oo xilligan ka ciyaara, iyo sidoo kale kooxo kale oo waaweyn ay markaasi u ciyaaraan. Ciyaaryahanada soo dhaweeyay ayaa markaasi ka mid ah ciyaartoydii hore u soo ciyaartay naadiga Genyo, hadda qaarkood macallimiin ah, iyo sidoo kale xidigo ay isla soo ciyaareen Cabdijoon Yo Cali iyo sidoo kale Mustafa Franza oo kubadda ay isla soo ciyaareen naadiyada ay soo maray. Sidoo kale taageerayaasha kooxaha dalka qaarkood ayaana soo dhaweeyay xilli ciyaareedkan oo qayb weyn markaasi ka qaateen kooxaha soo dhaweeyay macallin Jabshi oo hore ugu tirsanaa kooxaha dalkeena Soomaaliya.
Macalin Jabshe ayaa ku noolaa dalka Kenya in muddo ah, waxa uu ka maqnaa kooxaha dalkeena Soomaaliya muddo la eg 14 sannadood uu ka maqnaa dalkeena Soomaaliya ayaa hadda dib ugu soo laabtay, waxaana la filayaa inuu ka soo muuqan doono kooxaha dalkeena Soomaaliya mid ka mid ah. Iyo sidoo kale waxa uu sameyn doonaa ciyaartoyda tababaro kala duwan. Horena waxa uu ahaa macalin garab istaaga. Sidoo kale macalinkan ayaa dhowaan waxa uu la kulmay mas'uuliyiinta xiriirka kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya. Waxa uu magaalada Nairobi ku soo dhaweeyay dalka Kenya Yusuf oo ah xogayaha kooxda kubadda cagta waa xiriirka kubadda cagta, iyo sidoo kale Jamaal Jaamici oo ka wada tirsan xiriirka kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya. Dhanka kale macalinka labaad ee xulka qaranka ee kubadda kolayga Soomaaliya ahna madaxa horumarinta isboortiga gobolka Banaadir Macalin Daawud Axmed Maxamed ayaa xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga ku wareejiyay agab isboorti kaasoo loogu talagalay in sare loogu qaado ciyaartoyda iyo kooxaha si ay uga faa'iideystaan qaranka Soomaaliya. Waxaana ka gadoomay gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xiriirka kubadda kolayga oo markaasi soo dhaweeyay.